وبركاته مدنيال مروين أصحاب شرفت له صاحب يال ملو بو الدنيا كجوكتان يا طبعا سيول بو نو داون إنسان هل كان ويوتيوب channel طبعا هذا وحا سفر كنا قبل لابن يا سوق بوادي أما سوق اللي يجري سوق الحجاز طبعا دتك بدي واي قانان انت دقن حافظها حي سلام او كله حي البوادي اما ما حي الرب وجود هان وقرنا سوقا ومال اي دتكو runtii ka tukaameystaan mardoon waxa halkan u soo guuray oo hadda idin tus doona suuqa Soomaalida ee halkan u soo guuray iyagana ila socda marka ka timaado dhinaca aan raahde احنا في الشمال ولا في الجنوب الان في الشمال وسط احنا الان فين في شمال جده ولا في الجنوب؟ شمال جده. شمال جده اوكي marka ka timaado dhinaca koonfureed ee magaalada jidda oo aad ku timaado wadada 60ka jidka 60ka la yiraahdo aad yuutan ka soo qaadanaysaa kubrigan hoostiisa kubrigan dabcan waa kii shaaric Quraysh iyo 30ka kala baray ama kala goynay si aad u timaado hadaba suuqa Soomaalidu ay hadda u soo guureen oo ah waliba Soomaalida kuwa ka soo guuray aan raade meesha la yiraahdo Suhayfa Mall halkan aad ka soo noqonaysaa kubrigan hoostiisa marka aad kubrigan hoostiisa ka soo noqoto dabcan dhinaca inta bisakal khadamada khadamaadka kaliya ku soconaysaa ama wadada la yiraahdo surface roadka kadib halkan dabaqadan hadda aad arkaysaan shishadiisa ay ka soo bixi doonaa suuqa ay haatan u soo guureen Soomaalida hadii marka aad danaynayso inaad wax ka iibsato waxa aan runtii rajaynayaa inaad u baahnaan lahayd inay ciido ku tilmaanto halka suuqa cusub laga furay haatan nala soco waxaanu idin tusi doonaa suuqa cusub ay dadka Soomaalida ah kuwooda ganacsiga ku haysay Suhayfa markii hadaba halka la jibay u soo guureen اوكي قريب احنا قريب الان هذا ايش اسمه بعد الشباك هذا ولا اسمه شوف قش بعد هذا قش اوكي هل كان ماركيسا سوقا وحكو قرن الشيكا قش قدام هنا وكان هلك اي سو دغن سوقا ويا سوق دكامada ay Soomaalidu ka furteen halkan اوكي الى 20 دكان ay halkan ka furteen aliir Soomaalida طبعا ولي هدي لهاد نديغو ما خون قف Soomaali ah laakiin waan raadin doonaa sida daraadeed nala socda si aan warbixinada kaga sin شوف لنا موقف نوقف عشان لازم نشوف Soomaali هنا اوكي وين لازم نشوف وين فتحوا المحل يعني قالوا في داخل السوق هذا لا ممكن سوق البوادي لا نفسه هذا هو نفسه هنا داوديال waxaan rabaa inaan idin saxo marka hore hadal iga tagay oo ahaa suuqa uu furan yahay suuqa wali lama furin waa kan sidaad aragtaan hadda wali waxa ku socoto dukaamada Soomaalida oo halkan la igu sheegay inay ilaa 20 kuwaas oo ka soo guuray suuqa weyna ee Suhayfa kadib markii halka ay noqotay in la dumiyo laakiin hadda sida uu ninkan ii sheegay injineerkan waxa uu leeyahay hadda diyaar garowga kadib suuqa waxa la furi doonaa goorma la furaya ama suuqa waxa la furaa ilaa isbuucin ayaa ka dhiman markaan dhameysano kadib waa la furaa suuqa waxay ayaa ulma wala dhameystiraya insha Allah iftitaax wanaagsan Ramadaan wanaagsan ilaahay anaga ilaahay noo fududeeyo waagartaan ilaa intee dukaan Soomaalida halkan ka furtay ilaa 20 dukaan 24 dukaan waa marka badi dadkii halka ku ganacsi jiray intay joogaan kulli intay soo guureen okay maxaa u sheegaysaa dadka halka anigu ala amin karaami aan quraay waxaan sheegay in wax yar ka dhimay ilaa isbuuc ونص كلمه kadib la furaayo aad baa maasanta jazakallahu khayr داودي الاسنا halkan waxaan kula kulmay Yaxya Biimaal oo isna ah mid kamid ah ganacsada Soomaalida oo isna halkan hadda ku jira diyaar garowga dukaankiisa Yaxya marka hore maxaa dadku u sheegaysaa goorma la furayo suuq insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dadka waxaan sheegay insha Allah suuqa waxa la furaa ilaa kanaana ilaa bisha kooda haduu ilaa kanaana marka hadda diyaar garowga ku jirta diyaar garowga ku jirna Ramadaan kooda insha Allah waxaan jecelnahay ila suuq dhan hal mar wada la furo Soomaalida halka ku xirneed maxaa ugu baaqaysaa Soomaalida halkan waxaan u baaqayaa insha Allah ku soo dhawaada insha Allah mar dhow meesha waa furi doona wax alla waxa uu baahantiin oo uma kartay ilaa kanaana aad baad ma soo Yaxya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكامة وأكنا halkaan intaan ka toobiyay marka kuwaan hadda shaqo ka socda milaalooyinka iyo maaragtay iyo balaaki waxaas waa la sameeyay dalabka uduma dikoroy kuwaan islaan oo kale ayay saasoo dikoroy waxa uu dhimanama adiga xoogaa khabi واقف مركا كم كان ولين كان وصلنا لين كسوماليدا لين كان أي سوماليدا دقيقان هذا وعكوس عدد ديار جرو مركا وعركان
عدي وبان مركا إنك تماد هالكن مركا وحال فرد دونا كودا بشهر رمضان كهدي الله أودي لوري لكنو أها هذا كله مرة سألنا كله من هذا الجهاز شوية بس ديكوريشن تسوي واحد كلمة أوكي إن شاء الله هذا ما صنت وراك أوكي وما صنت هنا عاصمة حوالي هندي يو إذا كان أكو جناح أوكي سومالي لكن لا مكان أوكي halkan isna waxaan kula kulmay Cabdirashiid Mahadalla oo isna kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee iyagu dukaamada ku lahaa suuqii weynaa ee Suxayfa kaasoo runtii hadda laga soo guuray kadib markii ay noqotay la dumiyo halkan waxaan kula kulmay isaga oo diyaar garaysanaya dukaan cusub sidoo kalena rajaynaya inuu furo bilowga bisha Ramadaan ee soo socota Cabdirashiid maxaad u sheegaysaa dadkii ku yaqiinay ee ganacsiga ku qanacsanaa ee hadda laga yaabo inay garanayeen meeshaad guurtay bismillah walaalayaal waa soo dhawaada وسوق عصباء إن شاء الله وبشا شعبان ما أنت وسددنا هي الله واتك شعبان إن شاء الله وجبنا سوق واكنا باكين واكن صار هذا إن شاء الله وسوق عصب 60 كوكو يلا سوق حلا مجلس طيبة صار هذا إن شاء الله السلام عليكم. باقي تقف مركز الربع إنه هدي ماذا تلمان تقول سهلنا يكون إيمان كرسوقا معيته. هذا سألت علي وعد أدوق وفواري واحد من هنا اللوكيشن. قفل أسوأ حبيت تاجن يا لوكيش كلام ده أوتوماتيك وإيمان إن شاء الله. مركا واحد رجع لسا دتكي كوح ناجري إن شاء الله تعالى إنه هالكلام. كمان كان ستة حجاية أدوك وذا جوتا دتكي سوى حجنا عمرها صونك حجك رمان وإن شاء الله ورد هلايا سود وذا. أنا وحسب دونا إن شاء الله موقعنا من لوكيش كنا يسار دونا فيديو قدشيسة سي أيقو سالنا تدتك ربنا يدي صوب. وأنا جدا دكان كذا شغال لها يا. أنا أدوم قاطع هذه السنة إلى أسبوع وحكتنا إن شاء الله وسود وانيسان. إن شاء الله وأركيسان ولي شغال كسرته كان كوكاسا أسي شيء دوان ولا فرد دونا هدي الله أود لورا لكي هاي سداس تردد نلاص هذا. أربعة ما سنتهي ساري. السلام عليكم. وأركتين ولي وحنا نروح ترنا سوقا وقابته سومالي ذا هالكن وسوق دونا هدي الله أود لورا لكن نقضه كما كانوا حاول من شقب بدن هسي إن شاء الله عد ربطها وأي إيمان كرتها ما تسردي. وحنا قلنا قارجنا نلص عضو إنكوا هذا محسن. وهذا قيبه كله سوقا واحد كيلي كرتا عبايدهان واحد كيلي كرتا رنتي درك الدمرك عرورته أوكله سوقا وسوق رنتي وين inkastoo hadda qaybta ugu weyn ay tahay qaybta ay Soomaalidu yeelan doonaan marka la furo oo ay isku soo dhamaato halkan hadda hortiina waxa ka muuqda dhamaan waa maxallaadkii oo dhan dabcan wada aragtaa dadka oo dhan halkan ay u soo tukaamaysi tagayaan cid walba meeshan ay rabtaa inay ka iibsato waxaad ka heli kartaa dharka noocyadiisa kala duwan dumarka مثلا dharkooda oo noocyo badan leh sida caruurta oo kale marka suuqan haddii aan tilmaam fiican idinka siiyo dabcan dadkiina degan xaafadda Bawaaldi aad ayuu idinku sahlan yahay waayo kaliya waxaad u baahan tahay inaad waxaan u malaynayaa taksiga halkan kugu keeni karo 10 riyaal oo kale laakiin markaad ka imaanayso xaafadaha kale dabcan waa inaad tusaale fiican ka haystaa halka uu ku yaalo suuqan waxa uu ku yaalaa wadada 60 ka halkii la dhigi jiray suuq Albawaadi ama suuqii loo aqoon jiray suuq Alxijaas dabcan gabigiin ama kulligiin waa taqaanaan wuxuu si toos ugu soo horjeedaa bangiga la dhaho Alinma Bank oo garabka ku haya kubri qashibka hadda la sameeyay ee ku yaala waad aragtaan kubri qashibkan hadda idin muuqda feeri waa kubri qashib macruuf ah dadka dhan dabcan way garanayaan halka wixii ka dambeeyana waxa ku yaala waa maxay waa suuqii bin Daawud aha kana waa suuqii caadiga aha oo ay dadku markii hore ay imaan jireen sidaas daraadeed marka waxaan filayaa inaad macluumaad fiican ka haystaan halka uu suuqan ku yaalo sida ugu fudud ee aad ku imaan karto waxa la furi doonaa suuqa Soomaalida maadaama uu hadda ku jiro dayactir dib u habeyn meelihii ay kristeen oo ilaa 20 dukaan ah sidoo kalena xiriirsan isku dhagan oo hal meel ku wada yaala kowda bisha Ramadaanka ay ku aadan tahay sida ay sheegaan marka la socda soo booqda cid walba aad ku tiqiinay Suxayfa Mall hadii ay ka dhuntay oo aad ka ganacsi jirtay agteeda hadda waxaan ku leeyahay waxaad ka heli kartaa suuqa Bawaadi intaasna waxa ku dhan saaxiibayaal barnaamijkeeni gaarka ah ee aan ku soo bandhigaynay mowqac cusub ama goobta cusub ay soo guureen ganacsatadii Soomaalida ah ee ku ganacsan jiray suuqii weynaa ee la oran jiray Suxayfa Mall ee ku yeelay Baba Maka bi amaan illah ma'a salaam